shirkadda sharaabka ee SBI Coca-Cola ayaa magaalada Burco ku soo bandhigtay biyo sifaysan oo ay ugu magac dartay Dasani biyahaasi oo ay sida ay sheegeen kuwa tayadoodu aad u sareyso. Munaasabada lagu daahfurayay biyahani ayaa waxa ay ka qabsoontay Hotel Dal Wanaaje waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda SBI Coca-Cola ee Somaliland, xubno ka tirsan golaha deegaanka, cuqaal salaadiin iyo badi bulshada qaybaheeda kala duwan. Maareeyaha gobolada bari ee shirkadda SBI Coca-Cola iyo madaxa shaqaalaha shirkaddaasi ayaa ka warramay biyahani cusub ay u soo bandhigayaan bulshada iyo faa'iidooyinka ku jira. oo biyaha ay soo saarto shirkadda Coca-Cola waana kuwa ugu fiican ee ugu tayada wanaagsan. waxa biyaha Dasani markii ugu horeysay la furay ama shirkadda Coca-Cola adduunka ka daafurtay 1999 waxay soo gaareen gobolada Afrika khaasatan Horn Africa ama Geeska Afrika waxay soo gaareen 2004 oo laga furay. waana waxay ka mid tahay saan sheegay sharaabada ama biyooga ay soo saarto shirkadda Coca-Cola. Purity sheegalaado ama biyo saafi ah oo badax tiran. Rakamada Dasani waxay ka dhigtay waa biyo saafi ah. waxaan anaguna falan qaadaynaa in waxa la wixii tabashaa ee ay soo celiso bulshadu soo celisaba inaanu anaguna wax ka qaban doono oo aanu la shaqeyn doono. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Jaamac Xoday, xildhibaan Bidhi iyo xubno isugu jira cuqaal salaadiin iyo waxgarad ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay biyahani cusub ee Dasani oo ay shirkaddu soo bandhigtay, iyaguna sheegay inay shirkaddani SBI uga barteen sharaab tayo leh. inaanu markhaati madoon tahay in shirkadda Coca-Cola iyo SBI taariikhda reer Somaliland gaar ahaan degmada Burco iyo gobolka Togdheer inay ku leeyihiin taariikh cad oo aan la ilaawi karin. Dasani baa imka maanta inoo hortaala jawaabta idinka la idinka sugayaa. Dasani iyo shirkadii kalena waa tartamayaan. idinka la idinka sugayaa waxa ay Dasani maanta runtii la soo baxdo jawaabteeda marka cabtaan bay soo celin doonaa. anigu waa dhadhaliyay markiiba jawaabtan aniga hooyada Dasani waa ku ammaantay. warbiyaha iyo shirkaddan iyo dadkani way inooga duwan yihiin dadka kale. aynu biyaha cabno, ganacsatadu ha iibsato, hala suugayo. biyaha waa biyo reer macaamaal ku leh. idinma sinoo baan filayaa reer Burco shirkadaha kale ee ganacsatada ayaan dadka waxba ku soo celin iyo shirkad dadka wax ku soo celinaysa idinma sineen iyo idin sinaanin baan leeyahay xusuus qoryeesha cidda wax idin gashatay idinkuna gashada. wassalaamu calaykum. shaqa abuurka iyo waxtarka aad ku soo kordhisaan waa idinka mahadnaqaynaa. waxa weeye waynu soo dhaweynaa biyaha haddee biyaha noo keenteen ugu horey marka ugu horeysa gobolka Togdheer ama degmada Burco ka daafurteen ee ay ka dhigteen tii ugu horeysay daafurkii ugu horeysay waanu idinla qaadanay waanu soo dhaweynaa. insha Allahna waxaanu rajaynaynaa inaanu socodsiino biyaha. Burco ama Togdheer waxay soo martay xilli laga cabbi jiray xaraq ama biyaaja. waxay soo martay xilli laga cabbi jiray ceelal, xilli oo aynu joogno qasabada laga cabbo. maantana waxaa lagu cabbayaa biyihii caalamiga ahaa ee Dasani baa lagu cabbayaa. reer Burco biyahan hore u cabbi jireen biyo sifaysan. maxay biyahani kaga duwan yihiin biyowga? kelmad yar oo kooban oo uu igu jawaabay baan doonayaa inaan idinla wadaago. waxay imika qaada Dasani qalbigay tegayaan ku qabooji naftaada. markii aad ku siiyeen oo ku qancay. biyahani Dasani ayaa waxay qayb ka yihiin wax soo saarka shirkadda SBI Coca-Cola, iyadoona shirkaddani looga maarmay sharaabkii ka iman jiray dibadda taasi oo ay iminka ku farsamayso dalka gudihiisa. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.